iyadoo muddooyinkii u dambeysay uu ka socdo qorshe magaalada ama master Planka ay yeelan doonto magaalada Borama ayaa maanta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland oo kaashanaysa dowladda hoose ee degmada Borama waxa ay dumiyeen Dayrar iyo Guryo ku dhacay master Planka ay yeelan doonto magaalada Borama waxaana howlgalkan ay goobjooga maayirka magaalada Borama iyo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda howlaha guud ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda howlaha guud waxaana hadalka ugu dambeeyay iskuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta ee gobolka Awdal saaka wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose oo iskaashanaya waxay olole ku qaadeen dhammaan diirarkii khilaafsanaa qorshe magaaleedkii loo sameeyay magaalada Borama deer kastoo khilaafsanaa oo wadooyinkii la sameeyay dhex yaalay oo bartanka wadda ka dhacday dhinaca ka dhacdayba dhammaan diirarkii khilaafsan dhammaantood saaka olole lagu fuliyay dhammaan shirkadaha laydhka ee biraha ka dhex taagan yihiin wadooyinkii la baneeyay ee waliba la cadeeyay waxaanu baaq u diraynaa in si ugu dhaqsaha badan ay ka furtaan oo biraha ay ka dhex qaadaan dhammaan wadooyinka la baneeyay arrinka saddexaad waa digniin waxaan u digaynaa dhammaan cid kasta oo wadooyinkii la baneeyay rabta inay ku soo noqoto ama xidhay waxaan uga digaynaa inaan dibna loogu soo noqon karin waddo kasta halkii martay cabirka ahayna sida loo deynayo qof kasta ku soo noqda oo isku day dib ugu soo noqdo waddadii la baneeyay talaabo sharciga oo faqsan bay ka qaadi doonaa wasaaradda howlaha guud dowladda hoose iskaashanaya ujeedadeena guudna waxay ahayd inaynu gaadhno Borama qurux badan Borama bilicsan iyo Borama qorshaysan qorshihii master Planka ee magaalada Borama ee socday ee gabagabada ahaa waxa saaka fulin gaar lagu sameeyay dhammaan deyrashii soo galay wadooyinkii loo qorsheeyay master Planka cusub ee ay yeelanayso magaalada Borama runtii dadweynaha waxa loogu baaqayaa in wadooyinka la sameeyay cid ku soo xadgudbi karta in aanay jirin in ay noqon doonaan kuwa sidaa imika loo ilaashay iyo si ka sii daran loo sii ilaalin doono dadweynuhu qorshaha loo sameeyay ma aha qorshe waxa weeye khiyaaliya ma aha qorshe beena waa qorshe rasmi ah maayirka magaalada Borama mudane Maxamed Axmed Warsame oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay waxa waqtigii ugu dambeeyay aynu ku jirnaa qorshe magaaleedkii magaalada Borama kaasi oo gabagaba ku dhow waxa markaa maanta howlgal aanu ka sameynay guryi dayrarkii uu ku dhacay master Planku taasi oo ay ahaayeen 7 guri oo dayrarkoogii uu saameeyay master Planku wadooyinka ku dhacay markaa dayrku ayaa waxaan fulinay in wadooyinkii la baneeyo sidaa darteedna la gaadho in wadadii ay noqoto mid isku toosan waxa jiray dadka qaar ugu tala galay in meeshii la baneeyay inay ka dhistaan dayr iyo dayrar hore u dhisnaa labadaba maanta waxaanu howlgalka aan ku sameynay annagoo iskaashanayna wasaaradda howlaha guud aanu fulinay inay noqoto waddo isku toosan oo bannaan oo noqota qorshihii magaalada sidii loogu tala galay waxaan rajaynayaa in magaalada Borama bilicdeeda iyo quruxdeedu ay ku xidhan tahay inay yeelato dariiqyo taasina waxay noo saamaxaya sida ay bulshadu u soo dhaweeyeen ay raallida uga yihiin ay u aqbaleen inay noqoto dariiqyo wanaagsan oo dhinac walba u socda kuwaasi oo fududeynaya isku socodkii magaalanimadii iyo horumarkii aan hiigsanaynay waxaan rajaynayaa muddada kooban ee nagu soo aadan inay hawshaasi dhammaato haddii Ilaahay yiraahdo oo aan ka dhaxli doono horumarkaasi talabaadna waxaan baaq u dirayaa dhammaan bulshada reer Borama sidii ay awalba ula shaqeeyeen inta dhimanna ay ula shaqeeyaan Cabdirsaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Borama